aad baan uga xunnahay in meydkiina maalin walba diyaarada lagu daabulo. doorashadii maamulka koonfur galbeed oo markaan lagu dhawaaqay xilliga ay dhacayso iyadoo jirto xodxodasho weyn ee markaasi wadaana madaxda ugu sarreysay u tartamaysa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe oo markaan ka cabsi qaba in loogu guuleysto doorashadaasi iyo sidoo kale muuqaalkan waxaan kugu la wadaagi doonaa ciidamadii taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen oo ku sugnaa dhulka hawdka ee duleedka magaalada Baydhabo oo fariin adag u diray xubnaha markaasi ay sheegeen inay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ay ka wadaan magaalada Baydhabo ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 2 bisha 6 ee markaasi sanada 2026 haddii aynu ku horeyno magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya bartamaha bishan June ayraada ee bishan ku guda jirna ee afarteeda ayaa lagu dhawaaqay ee ku aadan markaasi maalinimada Khamiista in la qaban doono doorashada golaha wakiilada iyo tan madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Nuur waa markaasi Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka oo isu weyn u horkacayso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi waxa uu sheegay in markaasi uu ka cabsi qabo in markaasi looga guuleysto doorashadan oo markaasi ka dhacaysa caasimadda Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si aad doorashadan waxa ugu loolamaya Shariif Sakiin oo ah markaasi madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo mar soo hogaamiyay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya inta badan doorashadan oo lagu kala aragti duwana ayaa waxa lagu heshiiyay in markaasi qaab sanduuqa loo codeeyo iyadoo markaasi ay jirto xodxodasho weyn ay wadaan xubnaha ku tartamay kursiga madaxweynaha iyadoo markaasi la kala wareegayo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo soo codeyn doono doorashadan markaasi la filayo in bartamaha bishan ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe oo tan iyo markii uu tagay magaalada Baydhabo halkaasi ka wada kulamo siyaasadeed oo markaasi doonayo inuu si aad ugu soo baxo kursigan madaxweynaha ayaa wuxuu markaan ula kulmayaa jahwareer siyaasadeed iyadoo dowladda ay gadaal ka riixayso waxay maara u laadahay dowladda hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud iyo markaasi oo Xamza Cabdi Barre oo ra'iisul wasaaraha ka yahay iyo xubno kale oo ku jiro Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac gudoomiyaha ayraada waa markaasi wasiirka dekedaha oo isagoo kursi ka soo qaatay magaalada Baydhabo ee gadaal ka riixayeen Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe waxay markaan maara u laayeen Shariif Sakiin oo ah madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo isagu u muuqdo mid doorashadan kaga adkaanayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo markaasi uu hadda uu yahay kusimo ka yahay Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo isaguna waa markaasi ka socda dhanka dowladda federaalka Soomaaliya xisbiga GSB kaarkiisa waxa ku tartamaya Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe halka markaasi oo dhinaca kalena amna xubnaha mucaaradka uu ka socdo waa Shariif Sakiin oo ah madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo doorashadan iyo ololaheedu ay ka socdaan magaalada Baydhabo oo habeenkii xalay ahay bandow ay saareen ciidamada ammaanka ee magaaladaasi ayaa haddana dhanka markaasi duleedka magaalada Baydhabo waxa digniin ka soo saaray ciidamadii daacad u ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo waxayna sheegeen in markaasi ay doonayaan in gabi ahaan bay la wareegaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maalmihii aynu ka soo gudubnay halkaasi waxa ka dhacay dagaal aad u qaraaro oo ciidamada koonfur galbeed ay sheegeen in markaasi hub iyo gaadiid badan ay kaga furteen ciidamada dowladda hase ahaatee dowladda oo iyadu dhankeeda soo saartay waraya waxay ku sheegtay in maleeshiyaadka Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ay markaan farxad ku yihiin duleedka magaalada Baydhabo waxayna sheegeen in gaadiid waaweyn markaasi laga qabtay rag dhaawacane lagu raajoogo oo xaafadaha dadka shacabka ay markaasi ku daweynayaan iyadoo laga qarinayo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadii daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo ugaas Xasan Cabdi Maxamed afyeenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa war uu soo saaray maanta waxa uu sheegay in markaas ay doonayaan in maleeshiyaadka warkacay Xasan Sheekh Maxamuud way sida hadalku u dhigeen inay ka saari doonaan duleedka magaalada Baydhabo oo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed markaan ka wadaan waxa uu sheegay in markaasi doorashadan ama doorashadii waxay hakad geliyeen ayraade waa kuwa markaasi ayraada golayaasha dadka deegaanka oo markaasi ka dhacday magaalada Baydhabo xildhibaanada dhaarinteedii iyo xilliga doorashada loogu talagalay intaba lagu maqaban oo waxa laga cabsi qabay inay markaasi carqaladeeyaan ciidamada daacad u ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo Baydhabo waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ciidamadii Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen markaan hubaar urursi ay ku jiraan waxayna doonayaan inay la wareegaan doorashadan ee markaasi ama ka hortagaan ay ka dhacaysa magaalada Baydhabo
cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen oo ku sugan magaalada nairobi xarunta dalka kenya isaga ayaa gadaal ka riixaya ciidamadiisa waxa uuna sheegay inay markaasi uu yahay maamulka saxda ee ka taliya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya waraysiyo kala duwan uu bixiyey waxa uu sheegay in maalintii lala wareegaya magaaladaasi dowladdu in ka badan 100 shacab ay ku dishay hase ahaatee waxa uu sheegay in markaasi uu mar uun dib ugu laaban doono magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba waxyaabaha ka soo kordhay xiisadan ka taagan maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo doorashada markaasi la qorsheynaya maalinta khamiista ay ka dhacdo magaalada baydhabo wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa